kulanti wacan oo wanaagsan inta hana daawanaysa idil ahaantiinba meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkii hargalka oo si toos ah kaga imaanaya istuudiyaha magaalada Nairobi ee RTN waa maalinimo qamiisa dabcan waa barnaamijkii hargalka oo maalin walba labada duhurnimo aynu ku soo qaadano dabadeedna aynu dib ugu soo celino waqtiyada dambe ee galabtii iyo habeenimada si dadka u dhaafay mar kale ay kaga bogtaan barnaamijka hargalka waxaynu ku soo qaadanaa waxyaabaha taagan ee Soomaalida qoseeya ee deegaanada tuulooyinka degmooyinka gobolada idil iyo baadiyaha xitaa hadii ay noqoto arrimaha ku saabsan ee maalinimadaasi ka jira sidoo kale deegaanada Soomaalida Ethiopia iyo Kenya iyo waliba caalamka meel kasta ay joogto ku soo qaadanaa qaybta ugu dambeysay barnaamijkan waxaynu ku eegnaa waxa caalamka ka taagan maalinimadaasi kuwa ugu hadalhaynta badan waxa la jooga Abdulcasiis Axmed Barrow oo aad siyaasadda uga barateen maanta waxaan rabaa inaan weydiiyo bal suugaanta sidii isku yihiin Abdulcasiis dad badan waxay kugu barteen karkarinta barnaamijyada siyaasadda iyo wararka laakiin dabcan taariikhdaadii hore waxa ku jiray barnaamijyo suugaanta ku saabsan iyo heesaha iyo maaragta dad badan kugu yaqaaneen waqtigii idaacaddii Beledweyne reer Hiiraan iyo reer Beledweyne ku fiirsanaan laga yaabaa heesaha waxa jira kuwii hore kuwii dhexe kuwii mar dambe intaanay dawladdu dhicin iyo kuwii qixii dambe la soo gaaray oo dhalinyarada cusub ay qaadeen dabcan waxaan arkaa inaad suugaanta af Soomaaliga ugu fiican tahay marka kuwa gadaal u laabanayna waxaan arkay dhowr jeer adigoo aad u dhageysanaya kuwii hore oo waliba waqtiyadii umaleynaya abayaalkii xataa inay dhalano ku tameeyay marka maxaa kugu dhaliyay inaad kuwa hore un maartay aad u dhageysato cabdirsaaqo horta waa wax sahlan in laga jawaabo laakiin markii aan u imaano qof dhaqankiisii hore awiyaashii aabayaashii markay ay gabiyeen ay ka sheekeynayeen xoolo ugaar fardo iyo waliba xayawaanaad kale iyo biyo iyo togog biyo socdaan iyo u soo qaadan jiray homaaga marka ay wax suureenayaan oo barbardhig u soo qaadan jireen way ku adag tahay in maanta loogu heeso baabuur iyo guri qurxan iyo wada laamiya iyo aqal madaxtooya iyo waxaas in loogu heeso way dhibaysaa marka inaan arrimahaasi hore aan dib u laabto oo aan heesii hore isha aan ku hay waa laba mid qofka marka uu ka shaqeynayo warbaahin waa inuu yaqaanaa af Soomaaliga rasmiga ah dambe dhalinyarada dambe waxay leeyihiin Snapchat-ka igala soco iyo hees leeyahay jirto way adag tahay waqtiga teknolojiyada adiga way kugu adag tahay marka qaar inaad fahanto haddana hadii lagu heeso marka qaar waad isweydiinaysaa markii la yiraahdo waxaad ii tahay telephone smart oo kale waxaan kuugu fikiraa sidii qof ilaalinayo computer Apple oo kale markii lagu yiraahdo iyo markii heestii xodaami cabdi tahliil oo kale la soo qaado waa laba sheeko aan marnaba la soo barbardhigi karin waa dabcan waa kaafi kala dheeri daddanka suugaanta afka qaninimadiisa iyo hal dhihistiisa iyo hal doorkiisa iyo sameyntiisa iyo dareenkiisa erayada suugaanta maxay ku taabanayaan marka laga hadlo kuwa aanad adigu garanaynin oo afkaaga asalka lagu sheego cabdirsaaqo ani suugaan markii aan dhageysanayo oo horta inay iga sheekaysaa dhir magooshay godan barwaaqo ah ubaxyo kala cayn xoolo fardo humaag qurux badan dhir cagaaran oo waliba dhadadu inta ay ku dhacdo ama roob ku day dharab leh marka humaagaas aan sawirto oo waliba ari la meeracayo geel inta dhalay maxkamad ari ku jiraan geel inta dhalay oo si aad xasuusto ari ku jiraan markaan u soo qaado oo kale Maxamed Axmed Kulu aan dib ugu laabanaya ee bahaw naxariisto wuxuu leeyahay sida geed caleen loo ubax guud ka qariyeen oo gooni laamuhu ay midaba geesteed hoobaan iskaadhiyo guntin mira ah leedahay oo soo gandoodo galka faraqa soo daray inaan yahay galgacalka baa goortaan ku eegaba qalbigaysa galisaa waxaase aan garanayn eeguna dacaashaqa halka aad gaarsiin oo soo dhiraanay isagoo dhirtii sida geed caleen loo ubax guud ka qariyeen waa marka sawirato geed caleen leh oo roob inta ku daay aan haraad iyo jiilal ka muuqano oo mas far badan geedkaas aan u saarneen haddana inta kibrigeedkii ubaxyo kala jaadjaada guud ka saartay oo ay ka soo socdaan hoobaan haddana wuxuu leeyahay sida geed caleen loo ubax guud ka qariyeen oo gooni laamuhu ay midaba geesteed hoobaan isgaartay iyo guntin mira ah leedahay
mirihii ay soo laalaadaan haddana wuxuu kusii darafriya oo soo gandoodo yaro soo jeecsamay galka faraqa soo daray oo laamihiisu haddana gal biyaha ay hoos socdaan oo haddana laamihii ay kusii jiraan ku hoobanaya markaaba geedkii markuu noo suureeyo qurux intaa leeg noo sameeyey wuxuu yidhi inan yahay kalgacal baan goortaan ku eegaba qalbigayga gelisaa waxaad iga dhigantaa sida geedka ishii daawato ay ugu ildoogsato waa aniga goorta aan ku eegaba sidaasoo kale qalbigayga jecel u galaa wuxuu yidhi waxaanse aan garanayn iyo gunati caashaqa halka ay gaarsiin hadba dareen aan kuu qaaday intaan la ege xaggee baad i gaarsiin doontaa waa su-aal mogti waa iga badisay kuluc markaa usoo laabtay sidiisa waxaa aniga xasuusta igu jira waxa weeyaan isaga iyo aamina cabdullaahi hees ay qaadaan waabad iga dareed show waxaa kasii daran heeskan oo leeyahay haddaan baalan leeyahay hawada sooma biibeen haddaan baaxad leeyahay badda sooma jireen jacayl birima goyso biyana kaama mayran waxay ku tusinaysaa jacaylka inaanan la mayri karin si kasta oo loo dhaqo waxaa moogtahay combyuutarkaada haddii uu virus kaaga dhaco faamad garanaysaa sooma qofka jacaylku u dhacay si kastoo loo faamad garayo ma baxayo haddii xubin jirkiisa kamid ahaan la gooyana weli dareenkii uu jooga marka sugaan heerka alla heesta aamina cabdullaahi iyo maxamed axmed kulo waxa weeyaan meel uu ku oranayo soo markaan ku waaye wacanay ku arki waayaba sida waa aroor hore walac tiri cadceedo warmihii gantaalaha wax ku siisay dunida macnaha wuxuu sawirayaa wejigaaga nuurka leh soo iguma werweri jirin wejigeedaba waxaa lagu sawayaa cadceed arooriyada soo baxaysa waa aroor hore cadceedo walac tiri warmihii gantaalaha wax ku siisay macnaha qoraxda markay soo baxda aroortii hore sidee u ifinaysa adduunka kale macnaha waa midab casaan yar oo indhaha aan dhibaynin oo mataqaanaa aad iyo aad u qurux badan oo marka ay kala baxayaan maarata waagu soo baryayo sidaasoo kale soon kuumaan wejigaaga nuur kale iguma werweri jirin macnaha waxaad dareemaysaa artist inay tahay mataqaanaa farshaxan wax la sawir inay tahay waxaa kaloo kusoo xigta qoraxdu aroortii qaybisay fallaaraha ama qaansar roobaad daruur midab ku qalis macnaha qoraxdu aroortii soo baxday oo aroornimo oo qaansar roobaadna waa qiyaasi kartaa macnaha qoraxdii soo baxdo qaansar roobaadna waa ekeynta markaad wax doonaysa inaad sameeydo waxaa lagu leeyahay tusaalaan usoo qaadanaynaa hebel waa libaaxa waa xayawaan dadka dila oo aan wanaagsanayn markii lasoo qaato laakiin waa libaax maxaa kaloo leeyahay hebel sida baahalkaas xayawaan dadka dila ma ahane sida baahalkaasi u dhiiran yahay oo geesi u yahay isna geesi u yahay xagga geesinimada ayay ekeyntoodu tahay marka cadceedaasi dhirtaasi waxaas dhan la shabahayo waa quruxda meesha loo sameeyo ka soo bilaabanaya iyo hibada sida goonida fanka Soomaalida uu leeyahay waxaan kaloo xasuusanayaa heestii culays kuma dhaqaaqdo mana cararto macnaha hal talaabo ayaa laga sameeyay jumlad saddex jumladood laga sameeyay culays kuma dhaqaaqdo mana cararto agta socodka kuma dhararto ciidda waa hal talaabo inta laga sameeyay oo waliba waxa laga hadlayaa talaabada gabadha ay qaaday gabadha talaabada qaaday ayaa abwaanku wuxuu ka sameeyay culays kuma dhaqaaqdo mana cararto agta socodka kuma dhararta ciidda way cirab macnaha talaabadii sii qaadays uunbaa laga sameeyay intaas weer marka qiyaasi kartaa waqtiga Soomaalida meesha uu gaarsiisay waana sababta keenaysa in dadku ay wadaadaan aad ma santahay waxaan maleynayaa inaan farsamo yaqaanka dhihi doono heesta ugu muhiimsan ee aan uga tagayna daawadayaalkayga isaga ka sugaynaa dabcan maslaxa u dhaafayna maslaxa haye maxaa u sheegtaa maslaxa waxa gooniya waa maslax runtii horta isaga fiicnaa lahayn inta la keeno fiicnaa cod macaan mararka qaar dadka isku qaraya waqti maslaxa farsamo yaqaanka heesta aad ku dhawaaqday ku luqeeyo kaligiisa qaaday mise waa talantaale heestan oo hore mise tii dambe tii ugu horreysay waxaa la yiraahdaa halka aad gaarsiin ama iguna daa caashaq waa kaligii heesta ugu cusubta aniga hore ma dhageysanaya heesa badan waan dhageystay waa heesii hore oo kulli lagu xasuusto kuwa ugu horeeyay waliba waa kulli abwaankii iska lahaa madacar buu ahaa niidii buu ku wareegaya laakiin waa dib baan ka sheegi doonaa haddii ay rabi saamaxo laakiin waa heesaan ugu jecelahay heesaha afka Soomaaliga ee lagu sameeyay kuwada ugu qiimaha badan markii aan soo noqdo waxaa kamid ah heesta Xoodaamo oo kale Yaxya heesta aydan ahayd oo cabdi sida faras bulaalo may wataa Xoodaamo Yaxya Xabaajad Yaxya Xishad baa igu yorsaday cabdi Sahliil waxa jirta hees oo boqorkii hoqay ceel hagardaamo lumiso hadimada kalgacal kale cilmigii uu horeeyo
horaarta maansada halaha tusaalaha hal yar aantada ayay harqabu ma jirtaa jannadii ma horodaa hablal xooral caynhiisa kuma heesaan waxa alla haysaba hoo kuma yiraahdaan hor ilaahay adiga iyo hodan ma isku aragteen ma isdhaafsateen hadal xaqaada allah u naxariisto maxamed mooga liibaan lagu korsameeyay qabrigii cilmi boodari xadraawi baa iska lahaa miraha waa heesaha runtii dhadhanka sugaaneed leh heesaha waxaa ka mid ah haddii aan soo qaaday aad u jeclaha balanbaalis qale malaho sida buuranaa dheer wallaahi mataqaanaa waa kayd badan baa kugu dhex jira mar inaan laga hadal siiyo weyaan insha allah aada u mahadsan tahay wuxuu ii sheegayaa maslax hees salaa derbi ku luqeeyo waa ceelbuur marka waa ereyada waliba cali dariya cali gaba iskale heeska ceelbuur baa la yidhahdaa waa heestii aad beeshkeedii afarta tuduce ugu horeysa ama qalcadda ugu horeysa heesta haddii aan u sugaanayno tallaabada laga sameeyey gabadha halkaa tallaabsatay intaasoo tuduc laga sameeyey culays kuma dhaqaaqdo mana cararto cagta socodka kuma dherarta way ciribsataa macnaha qaabkii ay lugteeda u qaadaysay ayuu hanaanka tallaabadeeda ayaa la waxay tahay mid qurux leh cabdisaaqow heeska waan u saaraynaa gabdhaha Soomaalida waxay noqdeen gabdhaha kaliya dunida ugu nasiibka badan may dhicin suugaanta loo sameeyay gabar kale dunida ku nool in loo sameeyo kaliya waxaa ku arwaxsanaysa suugaantaasi gabar Soomaaliyeed ay ku madadaalanaysaa iyadii baa lagu amaanayaa bulshooyin kale dunida waliba marka loo fasiro waxay ku leeyihiin oh my god waxay waxaan suugaan miyaa mase aad iyo aad marka la tarjumo oo afka Ingiriiska lagu tarjumo barnaamijyo badan oo ka qayb galay dalka Ingiriiska magaalada marka af Soomaali markii heesaha English lagu tarjumo aad bay ula yaabaan macnaha aad iyo aad waa intaasaan kusoo gabagabeynayna barnaamijka aad ma santaa Cabdicaziz aad ma santaa waa tahay daawadayaal waxaa aad daawanaysaan hargalkii oo maanta si toos ah kaga imaanaya stuudiyaha magaalada Nairobi aynu kusoo qaadanaynay deegaanada Soomaalidu ay degan yihiin maalinimadaas waxyaabaha ka taagan iyo siyaasadda caalamka ugu hadalaa inta badan waxaynu kusoo qaadanay magaalada Dhuusamareeb oo lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka waxyaabaha laga sameeyay ee agab ah iyo sidoo kale ganacsiga yaryar oo markaasi bandhig caaraweed la soo bandhigay magaalada Dhuusamareeb sidoo kaleeto magaalada Jowhar aynu kusoo qaadanay sida ay muhiimka u tahay xirfad abuurista dhalinyarada iyo shaqo loo abuuro waa ka xumahay gaarisiga jooga wajeer oo aan ka gaari waayay iyo weliba waxaan soo qaadanay oo barnaamijka ila falaqeynaya Cabdicaziz Axmed Barrow oo aad uga barateen xagga siyaasadda iyo wararka laakiin maanta ila falaqeynaya suugaanta iyo heesta ugu dambeysa barnaamijkan kusoo xiri doona Cabdicaziz waxay noqonaysaa heestii culayska kuma dhaqaaqdo mana cararto oo ku luqeynayay salaad maxamed shad aadam ma santiin intaynu ku kulmi barnaamij kala mid ah waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo كما عبصوتي عرفت نبلي على الوحسن قبول ما حويسي عينك استباويغو عرك واركي ما يسيدي عينك استباويغو عرك واركي ما يسيدي عد وحي كل أفتر كل عمل سمانتي وحرد ننكي دلي لقسي عدو وحرد ننكي دلي ما هدلوغ عليا دودا قعمة ديا فرا دودا قعمة ديا فرا عصركي عبعيدو قد كعرف كاكدسو كسوكي عادو فلان ودا عسانا وعدا يسيب على أنت عنكو وبالله
bislaadiyo cagaarkoo iftiimiyo nin ubaxa bixisuun qididaaqin weyn ilaa ciribta hoosiyo tinta caradeed cadxun ku arki maysidee كفحيو انتو الرب عريي لا ما عليتي اي مدي بعينتا لقوة ذا عيارو لو عيتاقو عنايو نفضلو سليدا البور كويالي البور كويالي البور كويالي عدلا لما اماني البور كويالي عينكي سليدا